ربنا إله وحكرنا وكحكرنا إن وحنا الصيام مسلمين يدنا واربنا دريدنا واربنا نقولنا وانا هاي وحين مسلمين تناوغ الشيء وجره إلهي وحني سهل dan iyo duruuf ka muuqata ayaa isugu keentay dhammaantood dadkan xarunta sancasanta ee ku taala degmada Yaaqshid ee gobolkani Banaadir. Dhammaan dadkani waa kuwa ka gedisan dadyoga kale sababtuna yihiin in ay yihiin dad qaba baahiyaha gaarka ama naafo. Dhammaantood uma dhameystirna lixaadkooda. Allah dhameystiran balse waxay ka codsanayaan muslimiinta intooda kale in maalinta ciidda ay ka farxiyaan ciyaalkooda iyaguba maadaama bishan aan ku guda jirno ay tahay bil barakeysan oo Ramadaan fadaa'isheeduna ay badan tahay. Sadaqadu waxay leedahay muhiimad aad u weyn waxay ku tahay xijaab aakhiriya adduunba. Ramadaanka dhexdiisa fawaa'id fara badan ayay leedahay oo bishan waa bil gaar ah khayrkeedana wadata sanadkiina marina soo marta qofkii Ilaahay u qadaraayana hela kana faa'iideysta. hooyo iyo aabbo walba oo halkan fadhiya maahan kuwa u shaqaysan kara caruurtooda maantay waxay ka wada siman yihiin hal duruuf iyo danyarnimo oo ah inay yihiin dad naafa ah alla ka sokowna walaalahooda kale ee muslimiinta ay ka dalbanayaan inay soo caawiyaan una ciidsiiyaan caruurtooda si farxad ay ula qaybsadaan walaalahooda kale ee muslimiinta ah maalinta ciidda oo ah maalin aad u qurux badan dadka muslimiintuna u tahay yawmul farax isuguna hambalyeynayaan farxadda ciidda iyo damaashaadkeeda waxay ka codsadeen dadyoga Ilaahay wax u dhiibay ee meel kasta ku sugan in ay soo gargaaraan walaalahoodan baahiyaha gaarka qaba qaarkood oo warfidiyeen kala hadlay ayaa ka codsaday inay muhiim tahay in maalinta ciidda ay la farxaan muslimiinta intooda kale ilmahoodan ay ciidsiin u baahan yihiin maadaama dad danyar ay yihiin aysan awoodi karin waxay fitro ku dhiibaan ilmahoodan ay ku ciidsiiyaan maarayim anagoo konton qoys baahiyaha gaarka qaba waxaan rabnaa dhar ciid waxaan ugu xariiro ilmo ayaan ugu xariiro umana awoodna uma gada karno walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan ka rabnaa ilmaan ugu xariiro anaga naftigeena jiisa iska nahay waxaan rabnaa ciidul fitriga iyo badarka fitriga waxaan ku bixi lahayn aan walaalaha muslimiinta ka rabnaa walaalahayna oo muxsiniinta waxaan rabnaa dhar ciidaan rabnaa Ilaahay inay noo soo kaalmeeyaan rabnaa konton qoys aan nahay oo baahiyaha gaarka oo qabo oo naafe oo shaqaysan karin oo jiis oo waayeele waxaad naga caawihaysiin dharka ciidda konton ruux aan nahay oo masaakiin oo wada qaanjeysan in muslimiintu waxaan soo siiyaan oo walaalahayna aan rabnaay haddaba Cabdi Xuseen Axmed maamulaha xarunta naafada Sanca Center ayaa ka warbixinaya baahida ay qabaan dadkani dadka baahiyaha gaarka qaba hadda waxaa noo dhima konton qoys kontonkaas qoys ayaa waxaa u rabnaa iidsiin iidana waa ogtaa dhibaatada ay leedahay dhibay leedahay waayo aabba naafa oo araga la amba aabba dhagaha la amba hooyo garguurinayso sida u jeediin oo ilmahooda iidna sii dhahayaan cid allaale walaalaha muxsiniinta meel walba ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inayna saacidaan dadkaani Macallin Nuur Maxamed Cumar ayaa dhankooda dadka kale ee muslimiinta ka dalbaday inay u gurmadaan walaalahooda kana farxiyaan iyaga iyo caruurtooda maalinta ciidda oo ah maalin aad ugu weyn muslimiinta dadka muslimiinta ah oo xawhaatooday ka taagroon walaalahooda ka liita oo sida ayaga aan ahayn inay soo taakulayaan ayaan ka codsanaynaa ciiddu waa maalin qaas ah waa maalin dadka muslimiinta meel walba ay joogaan ay iskugu farxad gelinayaan isuguna hambalyeynayaan curashada maalintaasi farxadeed ee ciidda balse waxaa jira dad danyar ah oo aan farxadaas ka qayb qaadan karin una baahan in gurmad bini'aadanimo la siiyo iyadoona dadka muslimiintu ay yihiin kuwo isku gargaara iskuna naxariista haddana dadkani danta yar waxay u baahan yihiin in farxadda lagala qayb geliyo oo dhankooda ay helaan wixii ay ku farxi lahaayeen fadlan u gurmo walaalahaagan danta yar Faadumo Cabduqaadir Raadi ay TV-ga Dalsan Muqdisho